nuur waxaa lagu haystaa inaad dishay Cumar Xasan Macalin oo si bareera u dishay waxaa ku banaan saddex jawaab midood nuur dambigaas waa galay ma gelin doodan ka qaba ha ku banaan nuur daahir geedi badiidana eeda dilka marxuum Cumar Xasan Macalin dilkaas oo ka dhacay degmada Xamar Jajab 16 Juun sanadkan marxuumka ayaa ahaa waratada ku iibisa alaabta fudud agagaarka ceelgaabta gaar ahaan waaxda horseed ee degmada Xamar Jajab goob joogayaal shacab ah ciidankii qabtay xilligii uu baxsadka ahaa eedeysanaha iyo ciidan uu shaqo wadaag la ahaa nuur daahir geedi ay maxkamadda dhigaysatay dhammaan marqaatiyaasha waxa ay ka sheegeen fadhiga maxkamadda in marxuumka uu u geeriyooday muran ka dhashay 2,000 shilin Soomaali ah oo ka mid ah 6,000 uu eedeysanaha sigaar kaga iibsanayay marxuum Cumar Xasan Macalin oo ahaa 70 jir nolosha ka maareynayay iibinta bagaashka fudud dhinacyada dacwadda ayaa si siman su'aalo u weydiiyay dhammaan marqaatiyaashii maxkamadda la hor keenay waa kan baarihii kiiska xidigla Cabdullaahi Cabdi Nuur Ilkaase oo ka jawaabay natiijada baarista booliiska waxay yiraahdeen ninkii qoriyu soo qaatay odaygu wuxuu yiraahdo qori soo qaatay qorigiisa asaaska la maxaa naga dhaxay waa u yimid asagoon la hadlin ayuu baaki sigaaru ka qaatay odayga markaas uu baakada sigaarka ii dhig kelmad ugu horeysay uu saas yiri hal xabo wuxuu ku dhuftay darbiga kore markii labaad uu war sigaarkayga xoog mad ku qaadanaysi tii labaad halkaas ku dhuftay maskaxdayna ka baxday isla eedaysanaha waa soo orday mooto meesha maraysa oo bajaaj ah ayuu islaan iyo gabadheedoo saaran uu ka tuuray qoriga intuu ku qabtay waa raacay maxkamadda ayaa la wareegtay qorigii dilka uu ku geystay nuur daahir geedi warqadda cadeynta dhimashada iyo qoraalka qiraalka eedeysanaha xeelaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Cabdullaahi Buule Kamey ayaa maxkamadda weydiistay in lagu xukumo eedeysana nuur daahir geedi ciqaab u dhigantay inta uu geystay cadaymii kale waxaan kala hor keenay baarihii kiiska oo ka warbixiyay goobtii crime scene management wixii uu kala soo kulmay goobtii dambigu ka dhacay sidaas darteed maadaama ay caddaatay in eedeysanuhu si bareer ah u diilay marxuumka isagoo nin booliis ah oo la rabay amniga inuu ilaaliyo isla markaa nin miskiin ah oo gadanaya gaari gacan lacagtiisi darteed inuu ku dilo waa wax xaraam ah qofku dambiilo waa noqon karaa laakiin kuwa qabtay booliis baan maxkamadda waxaan weydiisanayaa in ciqaabta u qalanta lagu xukumo oo hadil toogashaa qareenada u doodayay eedeysanaha ayaa maxkamadda ka codsaday in lagu xukumo magta marxuumka maadaama uu eedeysanaha xaalad gaar ah ku jiray dilkana uu ka dhacay isla goobtaasi Xamar Jajab eedeysanahana uu yahay nin geystay laakiin dilkaasi uusan u geysanin si kas ah marka maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in loo fiiriyo qodobka 4aad xeerka ciqaabta xarafkiisa ga oo duruufaha dunubta fududeeyo sidaas daraaddeed waxaan codsanaynaa maxkamadda in lagu xukumo nuur daahir geedi diyadii marxuum Cumar Xasan Macalin fadhiga waxaa goobjoog u ahaa ciidamo laga soo xulay baraha lagu hubiyo dadweynaha gaadiidka iyo saldhigyada booliiska gobolka Banaadir kuwaas oo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ugu talagalay inay u noqoto tusaale ay kaga waantoobi karaan ficilada noocaas ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuuta ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda dhageysiga eedda lidka ku ah eedeysane nuur daahir geedi intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saaraysa Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho